tuulada Daarfuul oo ka tirsan ismaamulka Wajeer ayaa waxay xigtaa xadka ay wadaagaan ismaamulka Garissa waxaana gabi ahaanba istaagan gawaari isu goosi jirtay deegaankani maalimihii ugu dambeeyeen waxaa gobolka Waqooyi Bari ka daayay roob mihigaana kaasoo watay daadad aad u xoogan haddaba maraan socdaal shaqo ku gaaray tuulada Daarfuul ee halkaasi kula kulmay dad aad u badan kuwaasoo doonaya inay gaaraan magaalada Habaasweyne ee koonfurta Wajeer Abdurrahmaan Bilow waa jiifkii hore soo maray ee tuulada Daarfuul waxaanu ka warbixinayaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka tirada badan ee ku nool tuuladani horta ani ahaan saaka waxaan aad ugu faraxsanahay booqashada aad soo booqateen iyo dhoobada iyo biyaha noo soo dhexjirteen idinka ujeedada tahay in aad ogaataan xaaladda aan ku sugnahay roobabka haddii waad kusoon tahay waxay sameeyeen fatahaadyo fara badan jid xirmo fara badan lagihii oo dhan ba fatahay Wajeer South waxay leedahay laga fara badan sida mid hadda nagu degan oo anaga noo dhaxayso qoytigan lagtan lag dheer la yiraahdo mid inta naga jirto la yiraahdo Arablow shub la yiraahdo shub waraawo aniga biimida noo dhaxayo marka shubab fara badan baa jiray wixii amarkiisa alla isla beegsaday waxaa jirtay qoytiga waqti 20 sano ku dhaweey waxay tabanayeen inay faraha ka baxaan dadka deegaanka Kenya inay faraha ka baxaan dhibaatooyin fara badan la soo maray ilaa xafiis madaxweynaha loo tagay kor way ka soo suurta gashay seminaaraal iskugu yeeray oo la soo sheegay saacadaha la qabsay inuu bilowda la rabay roobabkii mihigaanka ahaa ay waxa kulmay xilligii farka bixinta dadka ay diyaar u noqdeen horta arrinta ayadaheed waxaan u arkaa in ay aad culeys ay middan ugu tahay sababtoo tahay baabuur bixi kara mar baabuur soo gali kara mar dadka daydan waa lugeynaa meeshan Habaasweyne waa naqaan oo u lugay hadda ka horan aan lino inta ugu lugay 4 casho dhaxay loo dhigay oo roobkii mihigaanka ahaa da'ay iyo dadkii oo safar ku jiro oo qalbiga safar kaga jirto oo dad wax kasta u sheegto aan ka dhageysan karin meel ay marana aan lahayn oo isku wareegaysanay si bi dab la saaray ahaan horta dhibaatada ku wadan hayso taas marka sicir barar baa jiray sababtoo tahay ninkii 10 loor meel ku haystay markuu ogaaday inay jidka u xirmay hadii 10 kiis loor uu ku mintiyahay hadii shilinkiiba bawlad u sanfuulin shilin hadduu fuulin waxa ku dhici kara shilinkii bawlad baa fuulin waxaa gabi ahaanba istaagan gawaaridii u kala goosi jiray ismaamulka Wajeer dadka ayaana inta badan doonayaan inay iska saaraan deegaanka qaxootiga Cabdisamed Sheekh Cabdi oo ka mid ah oday dhaqameedka Daarfuul ayaa madaxda countiga Wajeer ka codsaday inay toddobaadii ku darto barnaamijka farabixinta bilaashka ah oo dadka deegaanka laga saarayo faraha qaxootiga waxa isku soo toosay marka muddadii oo bil laga dhigay iyo mafruuqoodii oo dhacdo Ilaahay amarkiisa ku maanta isku toosay sida darteed caqabadaas oo aad dadkii u dhibaysana way haysataa waxaan marka raacsan lahaa oo codsi ah dadkii madaxda ahaa oo ilaa iyo mooy markuu madaxweynaha ahaa abkuna ka soo shaqeynayay dadka Kenyaanka ee faraha galay in laga bixiyo dadkii soo daba taagnaa ee imbibi soo dhiibay ayagoo mahadsan in ay haddana ku dadaalaan mira dhalkii uu dadaalkooda mira dhalay inuusan khasaarino haddana ama muddo kordhiyaan ama habadiyano kumbiyuutarada oo division ha kala geeyaan sidii dadka Kenyaanka Kenyaanimadooda loogu celin lahaa in ay ku dadaalaan aad baan u rajaynayna sababtoo ah annaga dib baan ku qabnaa sidaa darteed ayagoo mahadsan imbiga iyo wixii lamid ah horta waan jecelnahay in ay dadaalkaasi la warabaan waxaa kale oo fariin u diraya oo fariin mas'uulnimo aan u diraya nimanka joogan countiga ee governor iyo deputy governor waxay kamid yihiin dadka mas'uulka ka ah dadka farabixinta ama dadka biyaha ay xarqiyeen ama ay biyaha go'doomiyeen ay kamid yihiin imbi iyo dawladda dhexe oo maanaha ku taagnaa county government waxaan meeshaan ku rafaadsanay waa Wajeer county ma aha Nairobi oo imbi u fadhiyo ma aha Nairobi oo Uhuru u fadhiyo waxaan ka codsanaynaa governor Wajeer county waxaan Cabdi iyo ku-xigeenkiisa mashquul weerar waxaan ka codsanaynaa in ay ka qayb qaataan dadkan sidii faraha looga bixin lahaa laguna gaarsiin lahaa deegaanada ay faraha ku jiraan oo dhan ayaga og yihiin dadka ku nool tuulada Daarfuul oo ka tirsan koonfurta Wajeer ayaa aad u liitaan maadaama dadka inta badan ay yihiin xoolo dhaqato roobabka ka da'aya gobolka Waqooyi Bari hadday sidaan ku sii socdaan ayaa waxaa khatar galaya qutulyoonka dadkani Xasan Kaafi Badacas 24 TV koonfurta Wajeer